wiilkan yar waxay riyadiisu tahay inuu noqdo Elon Musk labaad ee adduunka soo maray waxa uu jecel yahay inuu la kulmo Elon Musk والقدوة ديالي هو إيلون ماسك يعني كان نتمنى بشدة باش يعني أنني نتلاقى به waxa uu sameeyay in ka badan ilaa dhowr robot soo kale magaciisa waxa lagu magacaabaa Hamuti Mohamed Bilal waxa uu dhashay dalka Morocco haddaba wiilkan yar baan maanta mawduuciisa inii wada iyo istorigiisa iyo sidoo ku sameeyay robotiskaas iyo halka aqoonta ka keenay iyo waxyaabaha u fududeeyay inuu gaaro hadafka inta leh ku soo dhawaada mawduuceena maanta wiilkan yar da'diisu waxa weeyaan 12 jir waxa uu dhashay dalka Morocco magaciisana waxa la yiraahdaa Bilal I'm Hamuti Mohamed Bilal. I'm 12 years old and I want to be the next Elon. haddaba wiilkan yari waxa uu ka soo jeeday family faqiiriina dadka xataa jaararkiisu waxay iska ahaayeen dad wada faqiiriina haddaba markuu iskuulka tagayo uu xaafada ka tago iskuulka uu sii socdo waxa uu wadada ku sii arki jiray dad naafa ah ama qaar gamcu istaagsan yihiin ama qaar gamcu go'an yihiin ama qaar luguhu waxyaabo badan oo ayna jirin cid caawinaysa wiilka yartaa waxa ku dhalisay fikir aad u badan sidaan u caawin karayaa si aan ugu garab istaagi karayaa in ay wax caawiya aan u sameeyo runtii fikir badan markuu sameeyay xal badan markuu keenay waxa uu solution-ka xalkii ugu dambeeyay uu noqday inuu sameeyo robot isu ikhtiraco runtii wuxuu isku dayay inuu robot sameeyo dan wuxuu bilaabay inuu internetka amba aalada social media uu ka barto cilmiga physics-ka mechanics-ka sidoo kale engineering-ka inuu cilmiyada daraasadeeyo uu fahmo uu ka barto internetka ayuu aad isku taxalluujin jiray uu isku dayay haddaba wuxuu yiri markii aan bilaabay shaqada robotiska uu soo qaatay electricity dhammaan qalabadii lagu dhisayay wayradii wixii oo dhan uu soo qaatay wuxuu yiri waan ku feel garoobay markii ugu horeysay dhismaha soo kale hadana waxaan ku feel garoobay connectionskooga adugu ku celcelin badan iyo hibo ilaahay uu siiyay faham dheeraantiisa sidoo kale waxa uu ikhtiraacay ugu dambeyntii uu soo saaray robotis gacantaas oo si automatic la qofka uu ka siinaya xagga dambe uu movement ka sameeynaya hadduu gacantiisa tiraado iyadina ay micnaha ay sameynayso gacanta robotka uu sameeyay la soo dhaqaaqayso hadduu kor u qaadana ay la qaadmayso hadduu wax ku tiigsadan ay la tiigsamayso si automatically ba ay isku shaqeynayaan ay isku shaqeynayaan sidoo kale waxa uu تحاكي الحركات ديال اليد حقيقيه قمت بالاختراع ديالها من اجل ذوي الاحتياجات الخاصه يعني sidoo kale waxa uu sameeyay bahalkan dustbinka amba qashinka lagu rido oo loogu talagalin in aan la taaban ayuu sidoo kale ikhtiraacay sidoo kale marka soo dul istaagtid sensitive-kaaga oo gacanta marka soo sii watid markiiba aayar buu dareen qaadanayaa automatic buu isku furayaa dan saasaad qashinka ugu ridaysaa waliba wuxuu arinta u sababeeyay caabuqii coronavirus-ka oo loo ogolay waxyaabaha in la taabto inuu dartood uu sameynayo sidoo kalena wuxuu sameeyay Robert Alertia oo qaylinaya oo gidaarka lagu xirayo oo mobilkaaga la shaqeynaya ayuu isna ikhtiraacay kaamirku sameeyay hadana wuxuu sameeyay mid kale oo maskaraha automatically gacantaada la shaqeynaya marka maskarada aad xirinaysid hadana marka iska furaysid qaab automatically wala shaqeynaya ayuu sameeyay afarta robot ayuu run ahaantii isagoo da'da jira uu sameeyay waa la weydiiyay sideed waxaan aad ku keentay amba aad ku baratay cilmigan runtii wuxuu yiri soo hadlayna uu sheegay wuxuu yiri waxa weeyaa waa talent qofka du talent ilaahay uu siiyo ikhtiraacida sidoo kale diploman oo sidoo kale caawismo amba uu caawimaad ka helo internetka amba social media waa sameeyay buu waxan iyo wax ka fiican buu ikhtiraacay karaysa وانا كان يعني اي انسان عنده اي موهبه يقدر انه يطورها ويتعلم يعني من الانترنت ويعني من هذه الاجهزه يعني التواصل الاجتماعي وفي البيئه المناسبه لذاك المجال يعني كيبدع اكثر كيطور مهارات wiilkan yari runtii afartaas markuu ikhtiraacay talentkiisa biyurka loona soo bandhigay adduunka aad ayaa loola yaabay wiil yaro da'da jira oo waxa soo dhan ikhtiraacaya runtii wuxuu mudan yahay inuu leeyahay talent biyura on madow ku jirin oo runtii wax ka badan oo ka waaweyn uu ku soo kordhin karayo adduunka insha Allah wiilkan sheekadiisa amba storygiisa waxaan ku soo gabagabayn doonaa inahaas wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh